mar labaad soo dhawaada waxaan meeshii ka sii wadaynaa xalaqadii dambe maadaama ay cajaladii inoo socon weyday oo ay nagu dheeraatay waxaan door biday in aan labo gaagaaban aan idinkaga dhigo marka qaybtii hore bay ahayd qaybtii labaadna halkan bay kasii bilaabanaysaa oo codkaygan dambe aan ku daba taxaya sida caadada ahayd magacayga waxaa la yiraahdaa Yaasiin Cabdullaahi Cabdi waxaan deganahay magaalada Göteborg ee dalka Sweden sidoo kale waxaa kaamirada iga duubaya saaxiibkay Maxamed Caawad barnaamijkiina halkan buu kasii soconayaa waxa kale oo jirta waxaan anagu waayadan dambe nagu batay waxa la yiraahdo Fatma waxa weeye waa cudur weeye waa baruur waa xayr waa qof buuran weeye caruurta marka ay buuran yihiin anagu waxaan u aragnaa qofka iyaga buuran inuu yahay caafimaad burnaantu caafimaad ma aha kuwa dhibka ay ku haysan Ilaahay maaragtay ha ka qaado iyaguna ha dadaaleen insha Allah waxa jira laakiin waalidiin aanan arkaynin ilmahooda buuran oo marka ay MCH ka yimaadaan ama Bonavor Central marka ay yimaadaan oo la yiraahdo cunugan xogaa miisaankiisu korbu u kacay Swedish ka xogaa way ku maldahayaan moogtahay alxamdulillah way la soo boodaysaa hooyada ama inta badan hooya la socota waa dhif naadir aaba la socdo laakiin hooyooyinka waxay la soo boodaan alxamdulillah haduu ii koray leedahay yani waxa laga hadlayo koriin ma aha waxa laga hadlayo waa baruur iyo xeer marka xeertaasi tahay wadnaha iyo meelaha siitay agagaarkiisa iyo buuk Fatma iyo macnaha oo caloosha iyo ay gasho way adkaanaysaa ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo lazy ah guriga fadhiya 24 saac muxuu ah ilmihii kaleetan oo ka horumarkiisii uu ka dib marayo midda kale waxa laga hadlay hurdadu aan rabay inaan kala hadlo waxay ahayd hurdadu aad bay u fiican tahay ilmuhu inta ay hurdaan ayay koraan intaas horta saas muu ogtiin ilmaha inta ay hurdaan oo hurdada ay ku maqan yihiin macnaha ay jiifaan inta xilligaas bayba koraanba magaranaysa ciyalku hurdo fara badan bay u baahan yihiin 8 saacadood iyo ka badan 8 saacadood dadka weyn baa u baahan iyagu 10 iyo 12 saacadood bay u baahan yihiin soo ciyalku macnaha ugu dambeyn yani da bay ku xiran tahay kuwa yar oo ilaa iyo 12 jirka 2 saacadood habeenkii markay tahay 8 iyo yani sariirtooda waa inay koraan magaranaysa markay xoogaa iyo dhowr iyo 10 iyo markay ay soo gaaraan ba 9 10 mar loogu daraa marba saacad laakiin haddaad hal mar wixii dhan aad wada siisid hadhow marka uu dhowr iyo 10 gaaro ama 15 gaaro xilli uu doon soo jeedi jiray qofna ma dhihi jirin hebelow seexo sidoo kaaga yeelaya marka hooyo kaale seexo marka waagu yaraa waxaad siisay xorriyad taama raali ahaada mar walba waxa iraahdaa hooyada laakiin hooyada marka aan leeyahay afkun ba iska bartay hooyo laakiin aabaha laftiisu ku jira macnaha hooyo iyo aaba labaduba mas'uul bay ka yihiin ilmahan iyagoo wada jir ah iyagoona cidina qasbin rabitaankooda bay ilmahan ku dhaleen marka sidaas oo kale iyagoo wada jir ah oo rabitaankooda inay maaragtay hawshan isla wada qabtaan insha Allah marka ciyalku waa inay helaan routine waxa weeye inay xilli wax aad u akhrisid oo bonus aad u akhrisid u soo qaad buugaagta Soomaaliga oo qaad identity-giisa wax ka taraya aqoonsigiisa wax ka taraya kor u soo qaad insha Allah xilli ay habeen walba inay ilkooda cadaydaan naht kaleedar inay isticmaalaan dhar ka soocan macnaha oo dharka lagu seexdo kaliya so kaas macnaheedu waxa weeye يعني ilmaha markay dharkaas ay xirtaan way garanayaan xilliga ciyaarta way dhamaatay yani waa signal aad isu direysaan macnaha dharkaas inta marka la xirto xilliga ciyaarta way dhamaatay dharkaas waa inuu noqdaa dhar ka bedelan dharka kaleeto ma garanaysaa habeen walba inaad wax u akhrisid ciyalka aad wax wada akhrisataan aad bay muhiim u tahay waa inaad habeen walba wax akhrisataan waa in ciyalka lagso aad ku bartaa marka aad ilmaha ku tababartid in akhris guri uu yahay guri akhrisa berito waxay saaxiib la noqonayaan buugii saaxiib la noqonayaan soo marka ma jeclaanayaan xataa inay meel iska fadhiistaan mar walba oo ay meel fadhiistaan waxay jeclaanayaan inay buug intay soo qaataan ay akhriyaan xitaa meelaha ilkaha dhaqaatiirta marka tagtaan meelaha jaraa'idyo iyo maqaalo iyo newspapers waxba iska yaala waxaas bay jeclaanayaan inay qaataan oo akhriyaan oo fiiriyaan marka yaa sameeyay waxaas adiga waalidka ah baa laga rabaa inaad beeskaas ama aaskaasaytii aad u samaysid si ay maaragtay hore ugu kacaan waa ina ciyalka ay helaan fritiis activity waxa la dhaho yani waa inay helaan xilli ay
ku ciyaari karaan ay wax ku ciyaari karaan waxyaalahan ka mid tahay naadiga sportiga oo kaleeta gay qolooyinkan Swedishka aad bay u fiican yihiin ilmaha marka ay naadiga ka mid noqdaan wax ciyaalka laftooda waxa la dhahaa soo qaado buugaagtaada naadiga dhexdiisa ku akhri soo marka waxa jira xataa waxyaalahan la yiraahdo lexial naadiga dhexdiisa oo laga caawinayo duruustiisa laga caawinayo way fiican tahay waxyaalaha log spellka oo kale sida kubadda cagta oo kale naadigaas ay tahay ku dartid kubadda cagta haddaad ku dartid way fiican tahay because naadiga kubadda cagta waxa weeye wada shaqayn baa ka dhaxaysa kubaddu waa inay isu baasaan inankaaga ama inantaada waxay baranaysaa in ay la wada shaqayso dadka kaleeto xitaa haddaysan jeclayn inay dadkaas la shaqayso marka waxay baranayaan xataa diblomaasiyadda ay baranayaan waqti bay qaadanaysaa laakiin sabar bay u baahan tahay inantaydu waxay ciyaartaa kubadda cagta maasha allah waanu ku dhiirigeliyaa runtii waalidka iyo caruurta waa inay leeyihiin wax la yiraahdo is-aaminaad kalsooni farturuwande macnaha waa inaad adigu ilmahaaga aamintaa adigoo aaminaya isla markaasay tina controlkii waalidnimo uusan ka dhumin macnaha anigu ilmahayga marka ay yiraahdo guri kaleeto hebel kaleetan aadaya of course waan aaminaya laakiin waalid ahaan mas'uuliyad ba isaaran waxay tahay waa inaan ka warqabaa inankayga inantayda meesha ay joogto so marka waxba igama dhibayso inaan telefoon intaan qaato aan waalidka xagga jooga oo la yiri waa u tagayaa gurigiisa joogaya inaan telefoon intaan qaato 10 second ay raado saytiin marontiin inantayda ama inankayga idinla jooga anaguna la jooga bas waad maasantiin khayr laadansi markay soo baxayso message ii soo dir ama ii soo wac ciao kalsooni baad iska abuuraysan intaas baan hadda idinkugu talagalay inaan muxuu ahaa idin sheego kaamarada waxa iga duubay saaxiibkay Ruucadaagi Maxamed Cawad oo asaguna halkan jooga aad baad mahadsantahay saaxiib insha Allah barnaamij ku xigo ma garanayo hadeertaan because barnaamijkan waxa weeye hadda aan duubay waxa weeye uun mid dhextaal ah su'aalo igu batay aniga waan aruuriyay oo aan is-iri dadka maaragtay la qaybso insha Allah waxaan rajaynayaa cajalada inay nagu dheeraanin aad iyo aad ayaad mahadsantihiin daawashadayna aad daawateen insha Allah waxaan rajaynayaa inaad qoraalkiina halkan aad ku qortaan oo aad commentigiina aad ka bixisaan ha ilaawin inaad la wadaagtid waalidiinta kale toos ayaan ugu baahanahay macnaha waalidiinta in aan xiriir la yeesho yani kuwa dhib ku haysto iyo kuwa dheefta ay haysta labadaba marka lama yaqaan maalinta dhibaatada ku qabsanayso ilaahay maartay wadanka iyo dadka ayaan la joogno maartay anagu badbaadiyo caruurtayadana hanoo badbaadiyo dariiq wanaagsan ilaahay ku toosiyo idinkuna caafimaad bashbashi barwaaqo soo bani cimri dheer iyo caafimaad ayaan idin rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh